قد كان هادينا يقول أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ذوي التقى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu mahadinaynaa. ilaahay inoo suurageliyey xalaqaadkan taxanaha ah ee bishan mubaaraga ah ee ramadaan. ilaahaygii ina waafajiyey noona sakhiray, rabbigaas ayaan maaragtay ku mahadinaynaa mahad aan la soo koobi karaynin. sidaan soo tilmaannayba, waxaan jecelnahay biidn illaahi tabaaraka wa tacaala ayaamahan kooban ee ilaahay baa ku tilmaamay inay yihiin ayaaman macduudaat, maalmo tirsan. maadaama ay tirsan yihiin, inaan annakuna axaadiis tirsan ee kooban aynu qaadanno si aan dhagaheena ugu cugno xabiibkeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, ee aan iska hadlin hadalkii uu ku hadlay hadalka ku hadlayna ahaa waxyi ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ugu soo dhiibay jibriil ruuxul amiin. nabigeennana soo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu tilmaamaayo, wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. waxa uu rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh sheegayo iyo hadalkiisaba waxaa weeyaan waxyun من السماوات العلى. حديث كان مانتا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. قفكو إلهي جعلاذو أبو هريرة إلهي كرع للنقضي وحالك سوري inuu rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam yidhi: haddii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon jeclaado, waxa uu u yeeraa jibriil calayhi salaatu wassalaam. ilaahayna waxa uu dhahayaa, ilaahay waxa uu jecel yahay addoonkiisa hebel ah ee jibriilow adiguna jeclow. markaas baa jibriil calayhi salaatu wassalaam jeclaanayaa addoonkii, kadibna waxa uu u dhawaaqayaa malaa'igta kale, waxa uu leeyahay ilaahay addoonkiisa hebelah ayuu jeclaaday ee idinkuna jeclaada. waxaa jeclaanaya malaa'igtii kale ee samada ehelkeeda ahayd. intaas kadib waxaa loo soo dejinayaa ogolaansho dhulka dhexdiisa ah oo addoommadii ilaahay baa wada jeclaanayo. waxaa wariyey bukhaari iyo muslim. walaalayaal, xadiiskan waa xadiis cadiim ah. haddii aan tilmaano lafdi ahaan, abi hurayra allaha ka raali noqdee, anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay, qaala waxa uu yidhi: idaa axaba allahu alcabda, hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeclaado addoon, waa addoon addoommadiisa kamadu ilaahay tabaaraka wa tacaala jeclaado, naadaa jibriila, waxaa loo dhawaaqaa jibriil: ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala yuxibu waxa uu jecel yahay fulaanan hebel, fa axbibhu jeclow jibriilow adigana.
waxaa loo dhawaaqayaa jibriil marka ilaahay subxaanahu watacaala idaa axaba alcabdu hadduu addoon jeclaado jibriil baa markaas loo dhawaaqaya oo la leeyahay ina allaha ilaahay yuxibu waxa uu jecel yahay fulaanan hebel fa axbibhu adiguna jeclow oo ilaahay subxaanahu watacaala addoonkiisa muxuu ku jecel yahay cibaadadii iyo daacadii iyo maaragtay wanaaggii iyo alla kacabsigii iyo alla u dhowaanshihii intuba uu la yimid weliba qofka markuu waajibaadka guto oo sunankii uu ka dabageeyo ilaahay subxaanahu watacaala waa uu jeclaanayaa wey nacam markii la ogeysiiyo jibriil oo la amro inuu jeclaado fa yuxibuhu jibriilu jibriil baa markii addoonkii ilaahay subxaanahu watacaala ama addoomadii ilaahay subxaanahu wataala dhulka ku sugnaa ama addoomadii ilahay dhulka ku sugnayd jibriil baa asagana maaragtay jaceyl u qaaday oo ilaahay dartiisa fa yunaadii jibriilu fi ahli samaa jibriil baa marka wuxuu u dhawaaqayaa ahlu samaahi buu la hadlayaa fii ahli samaa'i buu la hadlayaa oo muxuu leeyahay ina allaha ilaahay yuxibu waxa uu jecel yahay fulaanan hebel faaxibuuhu adinkuna jeclaada waa qof xag ilaahay laga jecel yahay ahlu samaawaadki waa jeclaanayo jibriil baa marka hore la amray kadib ahlu samaa'i waa lasii amraya jibriil markuu yidhaahdo jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa'i qofkaas iyo addoonkaas waxa weeyaan ilaahay ku xirnaa dadka ahlu samada jeclaanahay thumma intaa kadib yuudacu waxaa loo dhigaa lahu alqubuulu fi lardi dhulka waxaa loo dhigayaa ogolaasho iyo qabuul iyo qof walba maasha allah hebel ma aragta ammaan bay kala duldhacayaan maxaa yeele qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa jeclaaday jacayl ilaahay buu haystaa kadibna jibriil baa sii jeclaaday kadibna ahlu samaa'i baa laga jeclaaday kadibna dhulkii waxaa loo dhigayaa kalgacaltooyo iyo jacayl iyo wanaag dadkii o dhan baa jeclaanay wuxuu ku mutaystay ilaahay buu jeclaa asagana nacam addoonkan ilaahay buu jeclaaday yaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu jeclaaday waxaan tusaale usoo qaadanaynaa saxaabigii jilka cali bin abi talib radi allahu tacala canhu ardaah ee nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ee uu yidhi maanta waxaan calanka u dhiibayaa maalinkii uu maaragtay bandiradda islaamka dhiibay waxuu yidhi waxaan u dhiibayaa qof ilaahay jecel yahay asagana ilaahay jecel shuf marka ilaahay subxaanahu watacaala oo aad jeclaatid oo aad la kulankiisa jeclaat ilaahayna wuu jeclaan leh kulankaaga ilaahay subxaanahu watacaala oo aad karaahid oo nacdid la kulankiisa ilaah adigana wuu karhayaa man axaba allaha liqaa'ah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allahi kariha allahu liqaa'ah wey qofkii ilaahay la kulankiisa jeclaada oo wuxuu u jeclaanaya maxaa yeele waxa ka horeeya khayra iyo wanaaga iyo maaragtay naciim nimcooyinka ilaahay tabaaraka watacaala iyo maaragtay khayrka ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa u geystay aawadii buu ilaahay subxaanahu watacaala u jeclaanaya amaa qofka aan xagga ilahay waxbana u oolin akoonkiisa aan aakhir waxbana ku shubanin mar walba ilaahay subxaanahu watacaala macaasi iyo dulmi iyo dulumaad ku sugan waxaa weye adduunka inuu ka dhaqaaqana ma rabo la kulanka ilaahayna ma rabo jacayl ilaahayna ma rabo walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa markuu jeclaado awliyo iyo kuwo aan maaragtay sharaf iyo karaamo leh ay noqonayaan annaka awliyadu garan mayno laakiin sifaad bay leeyihiin laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waana kuwa muttaqiinta ah wey aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun wey ilaahay bay ka baqan weli ma aha nin maaragtay saliid kusoo shubay cidiyihii ay ku baxeen maaragta aanan tukanaynin ee shaarbuhu bannaanka yaalaan timuhu raamaha leh ee haddana ilaah aan aqoonin weli kaas meehee waa mid fel shaydaan iyo camal shaydaan ku sugan wey amaa awliyaa ullahi awliyada ilaahay tabaaraka watacaala waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala caabudo ka baqo arkayo maqlayo oo ilaahay subxana wataala ku xiran oo aragtida ilahay markaan la arkayo waxaan ka wada ilaahay subxaana wataala waxay arkayaan aayaadkiisii bay arkayaan weyaan waa tahay maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiiskan maanta faa'iidada koowaad in addoonka ilaahay subxaanahu watacaala jaceylkiisa helay inuu liibaanay addoonka ilaahay subxaanahu watacaala jaceylkiisa helay inuu liibaanta dhabtaa liibaanay oo ilaah hadduu ku jeclado liibaanka kaaga dambaysa ma jirto fakadalika waxaan ka qaadanaynaa jibriil inuu yahay madaxda malaa'igta ilaahay tabaaraka watacaala oo maxaa yeele marka kood asaa laga soo bilaabay asagana amar waxa uu siinaya jecel ah inay jeclaadaan maaragtay addoonkaas ahlu samaa inay jeclaadaan
كذلك وحين كقادنا رحمة الله تبارك وتعالى وأنك قفك أن اسك جعلنا قلبك أنك إني بهيد وح استام حق إله يقعان حق إله كسوفلو ضدك قفك إله كحرا لا جعلنا أو ما أنت نحن شهداء الله في الأرض نلك إله مرغاتي ونقرنا يا نبينا عليه الصلاة والسلام جنازة لسهر مريي مركاسو حاوي أمانين مركاسو نوحي وجبت حدنا متكلو حمان بالا سهر مريي مركاسو حكشك شيغين مركاسو حير وجبت مركو ويديون النبي الله قفك هر وجبت باتري كنا وجبت كي هر الأمانتين دي وجبت له الجنة كي دنبنا aad wax ka sheegteenna wajabat lahu naar riwaayad kale oo isdaba marinaysa waxa la soo mariyay kii xuma marka qofkaas dadka adduunka ku nool waxay marqaati u yihiin dadka kula nool adduunka mar waxa arkaysa qofna adduunka ka raaxaysana midna asaga laga raaxaysanaya marka midka wanaagsana ee alla ka cabsiga badnaa dadka dhan ba amaani oo wanaag baa laga sheegi oo waxa way khayr baa la hayaa khayrkiisaas iyo wanaaga laga sheegayo ayaa waxa macquul ah in loo aqbalo وأهل الجنة أو نوضه لكن أنت أصلا مسلمين اسكو مرة عيان قف حن إني وضع أمانان ولا ليال لأجل هذا إلهي وحن كبرنا ولا ليال تبارك وتعالى إنه كوا وصق جعله نقدر إلهي كوا وجعلها إلهي هنقدر ومتقين تأه ومحسنين تأه وما أرتأدون كأنه وحيقولها هي إنك قاضنا عن الإسراعينين دعينك النبي وحكمت اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا إلهي مركا ميال الدون كان همجينا iyo maartay walaalkeena iyo maar ujeedkana ilaahay adduunka ma yar walaalayaal xadiiskaas cadiimka ah intaas aan ugu gudbinaa biidinlaahi tabaaraka wa tacaala insha Allah tabaaraka wa tacaala waxaan sii guda galaynaa qaybtii su'aasha waxa sheegtaa saxaabigii jaliilka ahaa ee muslimiinta markay u hijroodeen xagga iyo xabasha afhayeenkii muslimiinta ahaa markii ay tageen dhulka xabasha waxa sheegtaa saxaabigii afhayeenka ahaa muslimiinta oo afkooda ku hadlayay markii najaashi loo tagay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaamahan qaaliga ah aynu ku jirno hayna waafajiyo habeenka laylatul qadr ilahna waafajiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa naarta uu ka xoreeyo allah nagu daro walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inaysan sibiq nagu dhaafin ayaamahan qaaliga ah ee aynu ka faa'iideysano ee aynu martidaan si martisoor wanaagsan u sameeyno oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaano oo alla ka cabsiga ku ziyaado laana ilaahay quraankiisa wuxuu ku tilmaamay hadafka ugu weyn la'allakum tattaqun waxa loo sameeyo waa in cabsi nagala hela oo sanadkan inta ka dhiman 12 bilood kale annako ilaahay ka baqayno ay maartay nagu dhamaatay ilaahay subhanahu wa ta'ala haydan barakeeyo wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين في أمان الله.